Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isu soo noqod wacan iyo mid ka mid ah sheekooyinkeenii xiisaha lahaa ee aan idinka soo gudbin jirnay channelkeena dhaqanka. Waa sheekadii dameerkii doqonka ahaa. Beri baa waxa saaxiib ahaa dacwo iyo libaax. Waxa ay ku saaxiibeen ka ugaadhsiga duurka. Libaaxu waxa uu dili jiray xayawaanada kale, halka ay dacwadu qaabilsanayd in ay soo aragto xayawaanada ama ugaadha kale ee ku nool duurka. Maalin maalmaha ka mid ah libaaxii waxaa kasoo horbaxay maroodi. Maroodigaasoo ahaa mid aad u xoog badan. Maroodigii waxa uu ku dhuftay gacantiisii dheerayd, halkaana libaaxii waxa soo gaadhay dhaawac aad u culus. Libaaxu waa boqorka xayawaanka, laakiin ma aha ka ugu xooga badan xayawaanka. Waxa u timid dacwadii, waxay aragtay libaaxii oo dhaawaca. Libaaxii waxa uu uga sheekeeyey sidii uu kusoo gaadhay dhaawacan culus iyo wixii halkaa kasoo gaadhay. Dacwadii waxa ay ku tidhi libaaxii, ha werwerin, aniga ayaa xayawaanada aad ugaadhsanayso fadhiga kugu keenaya. Libaaxii oo la yaaban arrintaa waxa uu ku yidhi, sidee bay suurtagal ku tahay inaad fadhiga igu keento xayawaan? Dacwadii waxa ay ku tidhi, xayawaanada aniga ayaa soo khiyaamaynaya, waxaan kugu keenaya halka aad fadhido, adiguna markaa qabo oo dil. Sidaas ayaa kusii soconayaa wada ugaadhsigeenii. Libaaxii oo aad ula dhacsan fikradda dacwada waxa uu ku yidhi, waa arrin fiican, halkan ayaan sii fadhiyayaa ee ii keen xayawaanada. Aniguna waxa igu ballana markaad ii keento xayawaanka in aan qabto oo aanu iga baxsanin. Sidii ayaa ay isla qaateen. Dacwadii oo ahayd mid aad u khiyaamo badan, markiiba waxay bilowday inay ka fikirto xayawaanka ugu doqonsan ee ay soo khiyaamayn karto, kuna soo ridi karto dabinkan ay dhigtay. Dacwadii waxay u tagtay dameer jooga meel abaar ah ama uu ku yaryahay cawsku. Waxa ay ku tiri dameerkii, waxaa halkan jooga libaax dhaawaca oo aan waxba iska celin karayn. Kaale raac, isaga ayaynu maanta soo dilaynaaye, waa kii ina dhibi jiraye. Dameerkii waxa uu ku yidhi, sidee baynu libaax u dili karnaa? Dacwadii waxay ku tidhi, libaaxu waa mid dhaawaca oo waxa dilay maroodi, waxbana iskama celin karo. Waxaynu nahay labo, iraac, kaale soo dil. Dameerkii waxa uu yidhi, waa arrin fiican. Sidii ayaa isku soo raaceen labadoodii. Waxay u yimaadeen libaaxii oo meel fadhiya. Libaaxii markuu arkay dameerkii waxa uu iska dhigay sidii mid aan socon karayn. Markii uu u soo dhowaaday dameerkii ayaa uu ku soo booday libaaxii oo waxa uu la gaadhay ciddiyihiisii. Halkaa waxa dameerkii kusoo gaadhay dhaawac fudud. Dameerkiina waa uu cararay, sidaana wuu ku baxsaday. Waxa uu iskaga noqday halkiisii uu joogi jiray. Waxa ka daba timid dacwadii oo iska dhigaysa sidii mid ka xun arrinka ka dhacay halkaa. Waxay ku tiri dameerkii, maxaa ku soo gaadhay? Dameerkii oo aad u xanaaqsan waxa uu ku yidhi, waxaan soo gaadhay waad arkaysay. Dacwadii waxay ku tidhi, libaaxu waxa uu leeyahay ciddiyo qura, laakiin ma laha wax ilka ah, adiga ayaa iska soo cararay. Waxaan islahaa marka uu isaga ciddiyaha ku qabto, adigu ilkahaaga afka badan ku jarjar. Dameerkii waxa uu yidhi, suurtagal may ahayn. Libaaxi sidaa u soo boodayay uma ekeen mid dhaawaca. Dacwadii hadda waxa ay koona kaga keentay khiyaamadeedii. Si ay ugu waday ayaa uu dameerkii soo dabcay oo una arkay sheekadan ay dacwadu uga sheekeynayso sheeko suurtagala. Waayo waxa uu arkayay dhaawac ka muuqda libaaxa dushiisa oo ahaa dhaawacii uu soo gaadhsiiyey maroodigu. Dameerkii waxa uu yidhi, adigu iga horree waayahay. Dacwadii waxay tiri, aniga ayaa kaa horreynaya, waanan qabanayaa. Adiguna marka aan qabto ha cararine, igu soo gaadh oo ila dil. Sidii ayaa ay ku heshiiyeen labadoodiiba. Waxay u soo kaceen xaggii uu joogay libaaxii dhaawac ahaa. Dameerkii iyo dacwadii waxay u yimaadeen libaaxii. Waxa uu cashar ka bartay markii hore oo kuma uu soo boodin markiiba. Waxa uu iska dhigay sidii mid aan kici karaynin oo aan lahayn wax ilka ah. Xoogaa ayaa uu fadhiyey. Dameerkiina waa uu ku soo dhowaaday. Markii uu sidhi hadda ayaad qaban kartaa ayaa uu libaaxi xoog ugu soo booday. Halkaana waxa uu ku qabtay dameerkii oo uu ku dilay.
sidaa ayaa ay dacwadii iyo libaaxii ku wada cuneen dameerkii hilibkiisii. Xigmadda sheekada ayaan weligaa been lagu khaldin, wixii lagu sheego sidooda ha u qaadan ee caqligaaga la kaasho.